waxaynu gelaynaa qodob ka mid ah qodobada xeerka xisbiga oo ah gudoomiyaha iyo ku-xigeenada in shirweyne xisbi lagu doorto tii baynu hadda geli doonaa inta aynaan gudagelin guddida qabanqaabada ee hore waxay soo martay oo hawlaheeda ka mid ahaa diyaarinta wixii looga baahdo cidda u tartamaysa guddoomiyaha iyo ku-xigeenada runtii way iska jiraan hadallo ah waa aroos waa cid baa loo tumayaa waxaa markhaati ka tihiin muddo inaynu ku celcelinaynay tartanku inuu furan yahay cid kasta oo ka mida xubnaha xisbiga inuu u furan yahay xataa maaha golaha dhexe musharaxiinta qura u furan yahay musharaxa madaxweyne iyo ku-xigeenka unbaa golaha dhexe qofka golaha dhexe u furan yahay laakiin kani wuxuu furan yahay qof kasta oo xisbiga ka mid ah oo xubinka ah oo ergada shirweynaha ka mid ah waad ogeydeen muddaanu soo wadnay muddaanu u qabannay muddo bila baanu lahayn hala soo xeraysto wixii macluumaadii wixii looga baahan yahay ee shuruuda ah debaajiye lacag baa lagu xidhay waayo waqtiyo hore waxaa inaga soo maray shirarka hore markay ku soo mareen waa inaad ka faa'iidaysataa wixii ku soo maray sidaa daraaddeed iyadoon cidna laga xidhin cidna loo diidin qof waliba uu u tartami karayay guddoomiyaha xisbiga qof waliba uu u tartamayay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ee koobaad qof waliba uu u tartamayay karayay ka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraadba oo cid ka xidhneed aanay jirin waxay ku soo urureen 7 xubnood ayaa u tartamay ayaa annaga noo keenay waxaanu uga baahanay ee ahaa shuruudihii guddoomiyaha xisbiga hal shakhsi ayaa noo keenay cid kulama tartamin cid kale oo keentay ma jirin xataa cidaanu ka diidnay ma jirin guddoomiye ku-xigeenka koobaad sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka saddexaad sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka afraad baa waxaa soo doontay 3 qof waxaa wareeggii labaad u soo gudbay oo shuruudihii soo buuxiyeen 2 waxaan u mahadnaqaynaa ilaahayna u baryaynaa inuu barakeeyo ilaahayna uga baryaynaa inuu if iyo aakhiraba wanaagga xisbigiisa u galay mid ka badan siiyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan oo tanaasulay sharaf bay u tahay karaamay u tahay abaal xisbigiisu u haya bay u tahay abaal aynu wada hayna bay u tahay taariikhu xisbiga ku leeyay bay ku tahay waa raggii hore xisbiga waa gole deegaan buu ka soo bilaabay ilaa maanta halkaas u joogaa wuxuu gartay inay cid kale maanta meeshii buuxiso ayuu gartay aad iyo aad baanu marka lagu mahadnaqaynaa dhammaanteenna aanu wada ducayno ilaahay inuu fi aakhiraba barakeeyo isaga iyo ehelkiisa iyo ubadkiisaba sidaa daraaddeed waxaa u tartamay halkaana u soo hadhay hal shakhsi baa u soo hadhay ma jirto cid iminka halkan la odhanayaa ka tartamaya dadkii hore shuruudaha soo buuxiyey ee faylashoodu ay bisha furnaayeen oo keliya unbaa halkan laga soo jeedinaya in loo codeeyo waynu gudageli doonaa guddoomiyaha xisbiga waxaa isu soo sharaxay guddoomiyihii hore ee xisbiga ahna madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa isu soo sharaxay marka waynu bilaabaynaa cidda ogol inuu 5 sannadood ee soo socda guddoomiyaha xisbiga ahaado mudane muuse biixi cabdi gacantaa taagto waa unanimous weeye 5 sannadood ee soo socda guddoomiyaha xisbiga waxaa ah mudane muuse biixi cabdi guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga waxaa isu soo sharaxay oo isna noo keenay shuruudihii soo buuxiyey gudoomiye ku-xigeenkii hore ee koobaad
مدن وزير محمد كاهن أحمد محمد كاهن عدة أقول إنه شنطة السنوات صوص على النقطة قدومي كحين كبار الحزب قاعدتها تاكت وهي الدشية وصيدو كلا ويوناني مسوي قدومي كحين كلبات وحوش الرحان وإسنا الشرودي سوبحيي مدن أحمد عبد حسين أحمد عبد الداري وهي فريستا إسقونا ويوناني مسوي قدومي كحيجين صدحات وحوش الرحان مدن حسين آذن عد ورنا حيل كانوا هي عن ثلاثة وهي فريستا وصيدو كلا إسنا قدومي كحيجين أفراد وحوش الرحان وأن عد الله الرحنين مدن وزير محمد حسن سعد ساكن gacanta loo taago waaya gacanta dhiga halka waxa inoogu dhamaaday mas'uuliyadda ku xigeenadii xisbiga laga bilaabo maanta oo ay bishu tahay shantii bisha xisbiga kulmiye wuxuu yeeshay maamul 5 sanadood cusub sii wadi doona haddii ilaahay caafimaad ku gaarsiiyo gudoomiyaha ku xigeenka koobaad labaad saddexaad يا أفراد رجع هالكا صوصفان هالكا فريق عدي دي عد كان مستوي مدينة ما شرتوه وحا أنا ما هذا غير كده هالكا فريق سيدا كرامة ده شرفت له احترام كله يعد كده موتشيا وحا نقدر هنا بريتو شرك وصعنا يا وحلا سحين دونا حبنيه قلاده waxaan codsanaynaa mar haddii imika la garanayo golaha dhexe sida deegaamada ama gobolada u kala leeyihiin in la soo xulo waa dardaaran in la soo xulo dad xisbiyahana in la soo xulo dadkii xisbiga lagu yaqaanay in la soo xulo dadka aan lagu aqoon boodboodka iyo duulduulka iyo socsocodka iyo maalinba xisbiga inay iska iibiyaan waxa kale oo aan ku dardaarmaynaa deegaan waliba uu garanayaa tirada uu leeyahay 20% buu ku dhufanayaa oo hablo dumar ka soo dhigaya dumar lagama qaban doono yaynugula soo luqoyn tirada la siiyay cidii dumarka loo qoonday aanay ku jirin yaynugula soo habsaamin iminkaba waaye waxaan u dhiibayaa iminkana oo afka gudoomiyaha iyo ku xigeenada xisbiga ku hadli doona madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waanu geyn doona bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxay la tahay shalay baan u hadlay sidii maxaan ku raahdaa dadkii hore ee aad u hadli jiray oo dheereeyo maanta kelmad ma hadda qumaan u kacay anoo ka wakiila gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ka labaad ka saddexaad iyo ka afraad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ergadan iyo bulshaweynta kulmiye oo muddo 18 sano aan ku jiray fulintooda iyo hogaankooda iyo gudoomiyahooda intayada badani oo intaaba nagu dulqaatay naguna aaminay xilka xisbiga maantana xilka culusna saaray aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ergada iyo taageerayaasha kulmiye oo dhan haddii waad mahadsantihiin waana karaamayseen xil culus baa noo dhiibteen waxaad noo soo raacisaan duco iyo inaad talada iyo taageerada nala ag joogtaan haddaanu qaldanana saxdaanuna qabataan annaguna aan adduun qabsoonno saasaynu xisbiga ku wadanaa hawshiisa qodobka labaad kulmiye waa xisbi ballaaran waxaa kaloo nala qabanaysaan xisbiyadu waa meel arrin lagu gorfaynayo la iskaga hor imanayo ra'yi kala duwan la midaynayo waxaanu jecel lahay cid kasta oo ra'yiga wadata laga bataa
inay u dulqaadato oo u hoggaansato kulmiye badankiisu halkuu maray haddii kale kulmiye dhaba maaha hadduu ka xanaaqo codkaa layga batay oo uu ka dudo kulmiye dhaba maaha annaga haddii uu wax naga tirsadana wuxuu leeyahay golihii dhexe mustambeedkiisii taageerayaashii intuba ciddii wax qoonsata inaynu waanino oynu iswadanno ku cadho ku maqan iminka iyo ku joogaba iyo ku cadhoon doonaba inay xeer nu ahaato xisbiga in laysku wado uu sidaa ahaaduu qaranka ku hogaamiyo oo ogaadaan taageerayaasha kulmiye inuu qaranku laba goor cod aqlibada ku yidhi hogaami xisbiyadii kaloo jooga iyagoo qarankan u tudhaya inaynu taa ilaalinaabaa waajib oo la xusuusnaado waan ku dardaarmaya waxaa kaloo doonaya inaan ka caddeeyo sida xeerka qodobka 14aad ee xeerka 14aad iyo xeerka xisbiguba dhisayaan inaan halkan ka caddeeyo labadii goor ee laga dooran lahaa aan isu taagi lahaa guddoomiyaha kulmiye labadiiba waa la igu doortay waana isu taagay waxa hubaala haddii alla yidhaahdo doorasho dambe anoo oday ka haddii ilaahay caafimaad nagu gaarsiiyo oon tartan ku jirin inaan xisbiga ka mid noqon doono taasina waa caddahay xisbiga guul baan u rajaynayaa iswadashaan u rajaynayaa qaranka kalsoonidu inay sii kordha mooye inaanay hoos u dhicin baan rajaynayaa intaa xisbiga laga arkaan ayaan rajaynayaa cid kasta oo dhexdeena wax ka tirsanaysana waxaynu u baahan nahay inaan iswadanno isu waanino kala garowsanno duulduul waynu ka weynaanay xisbi ahaan duulduul iyo fudayd iyo cadho degdega waynu ka weynaanay intaasaynu soo marray xisbigu waa waayo arag taasina waan ku dardaarmayaa aad iyo aad baa mahadsantihi wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu